munaasabadan waxay Mr. Israel loo soo gaarsiiyay musharax madaxweyne mudane Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax waxa uu maanta uga dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana munaasabada ka soo qayb galay waxgarad cuqaal siyaasiyiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah cuqaashii waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan musharax Qorax isla markaana ay garab taagan yihiin waxaan qabaa inuu yahay musharax ku aadan ku habboon wax ka qaban kara bulshada Jubbaland waxay bulshada Jubbaland u baahan tahay in isbedel lagu sameeyo wixii qorshe ahaa ama wixii shaqo ahaa ama xukunkii ka jiray وأنين أنا أقول أولى النهاي وأنين واحد بدن سوى شغالي وأنين أقول واحد بدن كقبتي وأنين دجاجنا صلاتك سنة قدام إلى صدق السنة كشغالي هذا سنة فرقة وأنين ما واحد بدن سوى كورين دونه أنا قبصدي أنا يا شيء أنا كلي واحتلني من إيه دون مرهن وأنين قارن دون ثلاث جود Jubbaland شعب جود الصوماليات أي تغيير دونان أنا وحنا قصينا أنا تغيرتان من رقعتين والدكتور قرح من الغاتين وهم يعاونوا وهم يعاونوا صومال متى أنت تدور على اليوم سنين البرنامج وحوالك السقطة عمل لبعض الله قواه ويقول من فجانية أو بعض أو أقل أو جسية صوماليا وهم عندهم توانتاس مدحوينه Cabdullaahi Maxamed Xirsi waxaan ku leeyahay soo dhawow laakiin hal baan ku sheegaynaa Soomaalidu waxay tiraahaa waxaad qarsato waa ku qarsadaan reer koonfurkana waxay dhahaan xaajada haddaan sida dabariyaad loo faydin lam yasix ma asaxayso marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne Jubbaland madaxweynaha Allah ka dhigo ana cinda cabdadanni bi ilaahay hadiis qudsigiis wuxuu adoonku iga maraysto buu iga helayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa hogaankii lagu nasay ee lagu raystay ilaahay ka dhigo musharax madaxweyne Jubbaland mudane Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax oo gabagabadii xafada ka hadlay ayaa ugu horeyn tacsi u diray dadkii u geeriyooday weerarkii lagu qaaday hotel Cascas ee magaalada Kismaayo waxaana intaasi kadib uu ku dhawaaqay inuu sharaxan yahay musharaxnimada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland isagoona ka hadlay wax qabadkiisa waxaan horay doonayaa inaan ka faa'iideysto khudbaddan aan dhaho aan tacsi u dirayaa dadkii qiimaha xidhnaa ee shalay lagu xasuuqay qaraxii iyo doorashadii ka dambeysay ee ka dhacday hoteelka Cascas ee magaalada Kismaayo ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto ilaahay sabir ka siiyo kuwii eedadoodii dadkii dhintay inta dhaawacana ilaahay waxaan leenahay caafiyo عدنا إن هاي أنا وعبدالله محمد حرسي قرح إن فعلنا هاي تلك مدحوينها دولة ولاية Jubbaland marka in badan ka diro waa Jubbaland intii ka diro waxaa leeyahay su'aasha suuqyada saamka aan sheegay waa Cabdullaahi أنا أقول لك أحمد شيبادي وأنا أقول لك آخر الفرنسا أنا مسجد سنتنا أنا أعرف ويلا سوق السيد إلى أكيو إلى عن السوق الله شاوري مكان مجال عليه وبعدين كسرتني ذكي إرجع هذا وعايز إنك الوقت واحد سكول الجيلها سأسأل وإلا الجيل نعم وخفض ومنايا صباح صباح بيرد كوسو قيسان كبا مركب حال الجيل جيرش سام مكان كل عمر وهذا مكان ولي شغال هوشي برشلونة مكان النهار هي ولا عقبة متى صار محمد العالم هيانك مسافرك وحبرشلونة نوشي إلى أن كجاري نشوف قدام بيصير شارع على غير عطو إلى PhD. وقلتي من المروي وحاولتي أن شغلنا وأنتي صامين فيها لكن ما شيء لا
koowaad waxaa weeye noloshii arkay miyiga iyo aqoonnimada taas oo ka bartay adkaysi iyo inaana marna niyad jabin haddii wax kasta dhacaa taas halkaasaan ka bartay arrinta labaad oo saamaynta noloshiida ku yeeltay waxaa weeye muddo gaaray waan ka shaqaynayay dhinaca samafalka oo aan bartay in markaas aan u taagnaado danta guud waana dan gaara aan ku mashquulin maxamed cabdi